السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن ونكسر صاحب يال ميل كستا oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada caawayo ciyaarihii waraxiisa badan oo ciyaaraha ku saabsan ay noo socda oo uu qayb ka yahay ciyaartooyga lagu magacaabo Nicolas Pepe oo ku maadeysta ciyaartooyga Van Dijk sidoo kale waxaanu eegi doonaa Manchester United oo ciyaartooyga ay la soo wareegtay ee Eddie Hall aan la safrkin sababtoo ah xanuunka cudurka weyn ee shinuu ka qarxay ee coronavirus darteed ayaanu ciyaartooyga ugu ula safri karin Manchester waxa weeyaan igaalo wixii laga filayay baa ka soo baxayo xanuunkii waka wali waxaan soo qaadan doonaa derby Milan oo ay labada kooxood ee Milan iyo Inter isku hayaan iyo xaaladda ciyaartooyga Ibrahimovic aan soo qaadan doono Abidal oo mar kale arin kala qarxiyay oo ku aadan ninka gaaban Lionel Messi ninkaas ma laga cilaayay iyo waliba ciyaartii Faisal Kob iyo Gohamo oo 9 darbaja saal la qasaariyay ugu dambeyntii Iniesta ayaa koob kale ku guuleystay xirfadiisa qodobada iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha هذا صاحب channel ku cusub tahay noo subscribe gareysay aad waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha habeen wanaagsan ayaanu leeyahay saaxiibayaal meel kasta waa dunida ka joogtaan warkeeni habeenimo ayaanu eegi doonaa caawa warka ugu muhiimsan ee caawa warkeena ayaanu soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu muhiimsan ciyaaraha waxa kamid ah ninka la yiraahdo Nicolas Pepe asagu ma ahan nin bila maxaa kalsooni la'aan ma aha ninka la yiraahdo Pepe ayaa su'aal dhab lagu siiyay oo ahayd war horta Pepe waxaan ku weydiinayaa Pepe waxaan ku weydiinaynaa bal minoo sheegi kartaa baa leeyahay difaaci kugu adkaa ee aad ka hortimaad waliga yani kubadda cagtu difaaci baa laga hor imaada waliba Ingiriiska leeyahay rag waaweyn baa jooga is aragteen waxa leeyahay difaaci kugu adkaa ee aad ka hortimaaday bal waliga noo sheeg su'aasha ciyaartooy qaar waa la weydiin jiray wayna ka jawaabi jireen laakiin Nicolas Pepe wuxuu leeyahay ma taqaana daacadda markan u hadlayo leeyahay aniga cidna ma arkin ugu adkaysa Premier League macnaheedu meesha halkiis wuxuu kala jeedaa macnaheedu halkiis wuxuu ku adkeeyay macnaheedu halkiis wuxuu ku soo koobay waxa difaaci kugu adkay waliga ka horimaad ma jira miyuu jira baa difaaci kugu adkay noloshaada aad aragto daacaddu markaan ka hadlo leeyahay cidna anigu ma adkeyn kartoba daacadda markaan u hadlo waa cidna anigu ma adkeyn karto waliga cidna difaac ahaan ima celin buu leeyahay anigu cid igu adkaysay difaacan ku dhibtooda ma jiro leeyahay macnaha kale wuxuu kala jeedaa Ingiriiska waxaan ugu imaad mid Van Dijk leeyahay oo ma la mar leeyahay macna dhulkaasaan aan ugu tago leeyahay waan dhaafay oo waxaan ninkii ugu horay u gabiyay ayaa marka wuxuu ku maadeysanayaa ninka Virgil van Dijk oo Pepe marka la weydiiyay su'aal ahayd warid ilaa hadda ma jira difaac kugu adkaad ka hortimaaday wuxuu difaacna kama baqo aniguna difaac ugu adkay ma jiro leeyahay aniga difaac oo aan leeyahay hebelo kugu adag ma jiro leeyahay jawad sheegayeen waka Nicolas inkastoo follow iska noqday Pepe horta meel waa saari Van Dijk isagoo malmarin la leeyahay u yimaaday meel buuna saaray durba waa kayo bariyahan waxa jiray xanuunka weyn ee dunida u gilgilaya ee shinuu ka dilaacay coronavirus ayaa dunida wareerinayo durbana Manchester United ciyaartooyga Eddie Hall asagu buuq baa ka taagan arrimihiisa markii hore waxa laga baqay inuu marba afka xogaa yar ka yara falanayo waxaan raadahay armaaba ninka ladin diiday inuu ciyaari waayo hadda viruskii buuqiisa soo batay oo wadan kasta dunida wuxuu isku dayaya xanuunkaas inaan u soo gudbin haddaba ciyaartooyga kan waa loo ogolaaday inuu Ingiriisku soo galo laakiin Manchester maanta maray safrayeen oo u safreen Isbaanarka ciyaartooygu wuxuu ku haray kaliya Ingiriisku ku harayo waxay Manchester ka baqdo leeyahay hadduu ciyaartooyga Spain la raaco hadhow inuu dalgalka dalku soo gali waayo soo laawa laga baqaya maxay Ingiriiska bariyahan wuxuu iska ilaalinayaa xanuunka virusku iska ilaalinaya iyo dunida gilgilaya marka maanta ciyaartooyga Man United Spain u duulay dhowr ciyaartooy ayaa ka haray oo ku jira ciyaartooyga lagu magacaabo Eddie Hall waa ka harayo waxay Eddie Hall ka baqayaan hadii uu la safro Marbella oo Isbaanar ah hadii uu la safro waxay Manchester ka baqaysaa inuu ciyaartooyga loogu ogolaa way dib inuu ku soo laabto Ingiriiska maxay la asagu wuxuu ka yimaaday Shiinaha waxaan laga baqayaa xanuunka inuu wato marka waxay leeyihiin in aad baxdo hadhow ma ugu soo laaban kartid marka Manchester ciyaartooygoodii maanta safray Eddie Hall waa ka haray sababtoo ah xanuunkan dartiis oo leeyahay ninkan haduu Ingiriiska ka baxo ninkan xanuunka intuu ku soo xoogaysto wadankiisa ku soo celi kariya hadda wadanka lagu celinaya waxa leeyahay hadaad isku baxdo haybalad virus noo soo gelisiye oo aan kaaga shakisanahay kowde hadaad mar dambe wadanka ka baxdo waa un adiga soo jiro arka ka hadlo ma taqaana Eddie Hall waxa uu sii joogaya Manchester sababtoo ah asagu Shiina ayuu ka yimaaday oo 14 maalmood ugu dambeeyay xanuunkan baa socday aad loo hadalhayaa waxaan ka baqaynaa buu leeyahay hadduu haddan raaco Spain noo raaco inuu dalka dib ugu soo laabaan ka baqaynaa marka wuxuu sii joogay uu leeyahay tababaruhu Ingiriisku sii joogaya marka Eddie Hall maanta lama safrin ciyaartooyga Manchester sababtan waxay tahay xanuunka viruska ah ee loo yaqaano coronavirus ka marka Eddie Hall waxa leeyahay haddaanba ku ogolayn Ingiriisku soo gashay
ingiriisan ka sii baxa oo kusoo laabanaya midna maka yeelin baa la yiri maka igahaalo saameyn waxaa ku yeelatay xanuunka kan ee baryahan wareegaya maadaama isaga dhulkii uu ka yimaado shiinuhu uu xanuunka ka soo qarxay ciyaartooygu waxaa loo diidayaa inuu baxo hadan waddanka dib ugu soo laabto marka ciyaartooygu Manchester maanta uu ka haray waxyaabaha kale oo miisan ciyaaraha waxaa kamid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Steven Boli ayaa cadeeyay Ibrahimovic inuu diyaar u yahay walow baryahan uu xanuunsanaa kulanka derby Milan oo habeen dambe ay dhexmaraya labada kooxood ee AC Milan iyo Inter Milan waxaanu ciyaartooyga Milan ka codsaday Steven Boli in ay u dagaalamaan sida legendiga Ibrahimovic oo kale waa inaan yeelanaa buu leeyahay wajiga laga cabsooday Ibrahimovic oo kale oo ah nin guuleysta ah marka waxaanu tababaru cadeeyay Ibrahimovic in uu tababarka qaatay una rajeynayo habeen dambe inuu diyaar u noqon doono kulanka u dhaxeeya labada Milan ee Inter Milan iyo AC Milan Ibrahimovic is back Ibrahimovic tani markuu Milan ku laabtay Milan marna xataa ma laga badin Eric Abidal iyo baryahan iyo Messi oo ka dhex tafatayna Eric Abidal ayaa wax laga weydiiyay arrimaha Messi ku aadan in Messi ay heshiis ka siixayaan Eric Abidal ba haddana mar kale qarxiye geeda inkastoo markan uu Messi ku tilmaamayo nin aan heshiiskiisa xataa lagu fududeysan karin wuxuu leeyahay waxaan ka hadlaynaa uu leeyahay ciyaartooy ugu fiican dunidu marka in heshiis laga cusboon in Messi heshiis cusub uu saxiixo waa waxaan marna fududeyn buu leeyahay macnaha ninka aad leedihiin aydiis ma dhameyseen oo Messi heshiis ma la gaartin aad leedihiin buu leeyahay waa ninka ugu fiican adduunka marka ninka ugu fiican adduunka inaad heshiis hore kala saxiixato waa wax easy ma buu leeyahay marka Abidal iyo Messi bariyaas ku kacsanaa ayaa ciyaartooygu caawa Eric Abidal uu amaan ka soo yeeraysa wuxuu leeyahay Leo waa Barca waxaan uu doonayaa inuu halkan sii joogo laakiin waxaan anagu ka hadlaynaa uu leeyahay markaad weydiinaysaa Messi ma joogaya waxaan ka hadlaynaa uu leeyahay ciyaartooyga ugu fiican dunida sidaas daraadeed heshiis cusboonaysiintu uu leeyahay marna ma noqon doonto wax easy ah ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Eric Abidal mustaqbalka Messi bariyaan aad baa looga shakinayo caawana Abidal mustaqbalka Lionel Messi shaki weyn buu ka dhaxaway markii uu yiri mar walba Messi heshiiskiisa in laga sixo heshiis cusub laga sixo ma noqonayso wax fudud dhan kale baryahan Andres Iniesta ayaa madax degsanayo macnaa tanu markii Barcelona uu ka tagay laba koob ayuu Andres Iniesta qaaday Faisal Kob iyo Guhama ayaa ciyaaray ciyaar final ahayd oo 9 rigoor la qasaariyay xataa Thomas Vermaelen xataa rigoor uu qasaariyay balse Andres Iniesta ayaan qalad galino rigoordiisii dhalay Iniesta ayaana markaa kooxdiisa ugu dambeyntii la qaaday koobkii ay ku tartamayeen iyaga iyo Guhama oo Faisal Kob uu koobka la qaaday taas waxay ka dhigantay Iniesta laba jeer inuu hadda koob la qaaday kooxda legendiga AC Milan ee Ricardo Kaka ayaa isaguna ku tilmaamay wax laga xumaado in AC Milan iyo Inter Milan ay ka maqayn ciyaaraha Champions League ninkan Brazilianka waa ninka Milan la qaaday ciyaaraha Champions League sidoo kalena waa ninkii kamid ahaa ragii Ballon d'Or ku soo guuleystay waliba Ronaldo Messi hortood buu ku soo guuleystay Ballon d'Or-ko wuxuu sheegayaa in ay wax xun tahay oo lagu niyad jabo inaanu arkin AC Milan iyo Inter Milan Champions League ciyaaraya walow Inter ay ka qayb gashan ciyaaraadka Champions League haddana ciyaartooygu ayaanan sanadkan u soo bixin ciyaaraha kama dambaysta ah ee wareega 16 Nerazzurri way hareen dhan kalena ciyaartoogii kooxda kubadda cagta ee Manchester ugu dambeyntii waa ay safreen waxaana warar soo baxay sheegayaan in ciyaartooga McTominay xataa uu Manchester United ciyaartoogooda uu soo kabtay dhaawacii ugu la maqnaa tan iyo December waxaanu tababaruhu cadeeyay Manchester maanta Ole Gunnar Solskjaer in Tominay uu hadda tababarka dib ugu la soo biiriyo kooxda Manchester United waana war u farxad badan kooxda Red Devils oo Tominay iyo ninka la yiraahdo Bruno Fernandes oo iselo Manchester shubwaaye oo Manchester adag bay noqonaysaa waxba laga qaban karin ba Premier League gool intiisuna waa la isku hayaa sanadkan oo yaa ku guuleysan karaya waxa Premier League ku qaadaya Aguero oo haysta 16 gool Mohamed Salah oo haysta 14 gool Rashford oo haysta 14 gool Ings oo haysta 14 gool Aubameyang oo haysta 14 gool Abraham oo haysta 13 gool Mane oo haysta 11 gool Jimenez oo haysta 11 gool Pukki oo haysta 11 gool iyo waliba Mr Jamie Vardy ayaa ku guuleysan karaya goolalinta tan oo isaguna haysta gool gaaraya 17 gool oo yaa sanadkan ku guuleysan kara is leedahay goolinta ciyaaraha Premier League wakiilka ciyaartooyga Jorginho wuxuu doorbidayaa leeyahay ciyaartooygu in bisha soo aadan ay July uu ka tagay kooxda Chelsea waxaan wakiilku cadeynaya ciyaartooygu inuu doonayo inuu dib u la midoobo macalinkiisii hore Mauricio Sarri oo hadda Juventus jooga waxa kale oo miisan inuu ciyaaraha Barcelona waxay doonaysaa bedelka Luis Suarez inay ka dhigto isla Luis Suarez Suarez ayaa ka dhaawacan waxayna doonaysaa Barcelona la soo wareegto Luis Suarez kale Barcelona ayaa raadinaysa bedelka ciyaartooyga Luis Suarez ninka reer Uruguayan ayaa Barcelona ka maqnaa inta kale xilli ciyaareedkan waxaana had sidsan uu raadinaya weeraryahan warka ugu dambeeyay waxay caawa leeyihiin Barcelona waxay isha ku haysaa la soo wareegida ciyaartooyga Real Zaragoza oo ciyaara ee xilli ciyaareedku dhaliyay 14 gool 24 gool u ciyaarayo magaciisana waxa la yiraahdaa isaguna Luis Suarez baa la yiraahdaa waa nin kale oo khatar badan
kaasoo kamid ah kooxda Real Sociedad marka Barcelona ninkan bay doondoonaysaa uu leeyahay sidoo kale wariyahana kale oo Barcelona la xirinaya oo xataa uu ku jiro ciyaartooyga lagu magacaabo Lucas Perez oo isagu xataa qirtay inuu jeclaan lahaa inuu Barcelona ku biiro dalab haduu ka helayo marka Barcelona wariyahan bay raadinaysaa kolley Ousmane Dembele todobaadka ma la qalaya kadibna waxa soo bixi doona go'aanka ah ilaa intuu garoomada ka maqnaanay ninka hadii waqtigiisu u dheeraado Barcelona wariyahan baa loo fasaxaya oo racfaan waxa la yaabo Barcelona fasax loo siiyay in wariyahan ay qaadato oo ay ku soo meel gaarto xilli ciyaareedkan Pep Guardiola wuxuu sheegay saan inuu tababar ku soo laabtay laakiin wali lagulama soo degdegi karo buu leeyahay garoomada waxa kale oo misan ciyaaraha ninka la yiraahdo Bale iyo Zidane xaaladooda baryan way si adkaatay ciyaari ugu dambeeyay Bale isagoo caafimaad qaba Zidane maanu ciyaarsiin labadoo nin dagaal baa ka dhaxeeya waliba ciyaarta ugu dambeysay Madrid la garaacay Bale garoonka buu isaga baxay hadda waxa lagu leeyahay taariikhdu iyada ayaa nafsadeeda u saxaysa waxa uu leeyahay xilli ciyaareedkan Bale uma hagar baxay Zidane tusaale ahaan waqtigii Julian Lopetegui Santiago Solari Bale waxa uu dhaliyay 14 gool isagoo 7 gool la caawiyay laakiin waqtiga Zinedine Zidane waxa lagu leeyahay Bale wuxuu ciyaaray 15 kulan oo kulmo yar ah walibana waxa yaani Bale wuxuu ciyaaray 15 kulan oo qura waxaanu dhaliyay kaliya 3 gool isagoo 2 gool caawiyay marka waxa uu leeyahay Bale uma hagar baxay Zidane oo isaga iyo Zidane aad bay isku hayaan labadan dagaalkoodu waa si dheeraanaya dhan kalena Zidane aad buu faraxsan yahay waxa uu soo fiicnaaday saddex nin oo triple C saddexdii siyeed ba u soo fiicnaanayo Courtois Carvajal iyo Casemiro waliba Casemiro waxa la sheegay inuu yahay ninka Madrid la'aantiis aynu ciyaari karin hadaba iyadoo todobaadka Madrid laga soo reebay ciyaaraha dalre ayaa war farxad badan wuxuu caaw yahay in Zidane uu heli doono ciyaartooygiisa kala ah triple C ee ah Courtois Carvajal iyo Casemiro ciyaarta soo aadan ee horyaalku ay ciyaarayaan dhan kale Barcelona ayaa war la yaab leh uu sheegaya in isku dayday suuqii la soo dhaafay ee January in la soo siixato ciyaartooyga lagu magacaabo Andres Iniesta Luchan odayga ka faki waayo maanta markuu Andres Iniesta qaaday koobkiisii 37 waxay ka dhigan tahay kaliya hal nin baa ka koob badan kubadda cagta waana Daniel Alves oo haysta 40 koob Iniesta Brian laba koob ay ku sidarsaday koobkiisa waxay warar ku leeyihiin Barcelona ayaa isku dayday inay soo qaadato bishii la soo dhaafay Andres Iniesta si kor Barcelona loogu soo celiyo dib hanaankeedii kubadda si loo saxo ayaa waxa la rabay in Andres Iniesta la soo celiyo wiilashan yariiska ah De Jong iyo Artur Melo iyo Rakitic iyo waxaan Bruno iska daba toosin karin isku wareersan inuu Bruno tusaale loogu talagalay inuu loo soo celiyo oo Barca waxay isku dayday bishii la soo dhaafay in Andres Iniesta ay soo celiso oo amaah ay ku soo qaadato si uu wiilashan u baro qaabka Bruno loo ciyaaro qaabka dhexda kubadda sida loogu ciyaaro ilaa isagoo jeed weyn buuxa waxa Rio Bruno waa naga wareeray bal wiilashan wad wax noo tustid oo yaani la wareegan bay doonayeen waqti yar balse ma inuu dhicin midda hatta siteen markii tababar looga dhigay Barcelona mar la weydiiyay ciyaartooyga baad jeclaan lahayd Barcelona ku soo dartay wuxuu ma taqaana Iniesta ayaan jeclaan lahaa buri kaas wili on ciyaaru ka duqoon buu leeyahay wali waa laga yaabay fursad uu noogu soo laabto marka Barcelona Iniesta xataa Hungariga ka galay inkastoo Iniesta legend aha ebel maxay u direen asoo waliba yaani si wadwadi karo hal hoo ciyaar si ciyaari karo oo badal lagu keeni karo hatta aqligoodu ku ceshay waayeen hadda ay January waxa la sheegay bishii soo dhaafay way dalbadeen wali Iniesta bay dalbadeen oo si uu qaab ciyaareedka kooxda u hagaajiyo oo kooxdan Banoonigeedii xataa waa lumay Banoonigii lagu aqooni jiray Barca ciyaaraysa maaha marka siteen wuxuu yiri hadii qofka insan la dhihi lahaa wali Iniesta baan keen lahaa sababtaas wiil ciyaaro kuma fariisan buu leeyahay ya waliba asagu wuxuu leeyahay waan awoodnaa inaan dib noogu soo noqdo marka Iniesta ayaan iska sii watay waqtigiisa Kobe oo heshiiskiisa wali aanu dhamaan balse waxay wararku caawiyaab kale sheegayaan ay caaw soo warinay wargeyska Sport uu soo warinayo in Barcelona isku dayday inay la soo wareegto ciyaartooygeedii lagu magacaabayay Andres Iniesta Luchan oo Andres Iniesta ayaa ka baxsay waayba lagu leeyahay kooxda taa dhanka kalena ciyaartoygii hore ee Premier League ka ciyaari jiray Arsenal Emile Petit ayaa isaguna qaba in Messi uusan lahayn tayo iyo awood ciyaareed yaani inuu lahayn awood jir ahaaneed ugu ciyaari kara Premier League mana ahan buu leeyahay sida Ronaldo oo kale nin machine ah oo Premier League ka socon kara bariyan waxa laga hadlayay miyuu Messi baan doona Premier League laakiin Emile Petit Arsenal soo ciyaari jiray wuxuu leeyahay Messi awood jireed uma hayo yaani physical uu yahay Premier League leeyahay awood jireed uma hayo leeyahay horyaalkan la saarsanaya dadka wada burburan ay wada joogan buu leeyahay xoog weyn leh marka sida Ronaldo oo kale uma maleyn inuu leeyahay inuu ka socon kara Premier League sababtoo ah Messi physical uma hayo leeyahay horyaalka kan caawayo ciyaarina waa naga inta nabadgelyo